I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. William Samoei Ruto, madaxweynaha la doortay ee Kenya, waa siyaasi ku dhawaad 30 sano siyaasadda Kenya ku soo jiray. Wuxuu soo noqday wasiirkii waxbarashada ee Kenya. 2013 wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenka Kenya, xilligaas oo isbahaysiga Jubilee ee uu hogaaminayay madaxweyne Kenyatta uu ku soo baxay doorashada madaxtinimada ee waddankaasi. Wuxuu wadooyinka deegaanka miyiga ah ee ku yaala Rift Valley ku iibin jiray digaaga iyo lowska. Ruto wuxuu halqabsi ka dhigtay nin xoogsata ah, isagoo sheegay inuu la dagaalamayo wuxuu u arko qoysaskii hore u haystay awoodda waddanka Kenya sida Kenyatta iyo Odinga oo doonaya inay xukunka sii haystaan. mar kale ayuu dhisay madaxweyne Kenyatta oo uu u noqday madaxweyne ku-xigeen 2017 doorashadii dhacday, balse heshiiskii loogu magac daray handshake ama gacan qaad ee dhex maray madaxweyne Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ayay isku seegeen saaxiibadii siyaasadda ee wasiirada ay ka soo wada bilaabeen ilaa madaxweyne iyo ku-xigeen ay laba xilli ku guuleysteen. Ruto ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay laga wareejiyay awoodiisa si dadban oo madaxweyne Uhuru ugu xilsaaray wasiirka amniga oo Uhuru Kenyatta u magacaabay madaxa xukuumadda. falsafadaas oo ahayd mid lagu dhimayay awoodda madaxweyne ku-xigeenka. William Ruto, madaxweynaha dooran ee Kenya, ayaa dhisay xisbi siyaasadeed uu ugu magac daray United Democratic Alliance UDA. Isbahaysigaasi ayaa marba markii ka dambeysay ay ku biirayeen siyaasiyiin miisaan culus ku leh dalka sida Musalia Mudavadi oo mar madaxweyne ku-xigeen soo noqday iyo Moses Wetangula oo muddo dheer ahaa senatarka Bungoma. Ruto oo ah siyaasi aad u firfircoon ayna isugu tageen madaxweynaha xilka ka degaya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo ra'iisul wasaare soo noqday ayaa guushiisa loo arkaa mid dhif iyo naadir ah. Ruto wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii hore u tagay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC kadib markii lagu eedeeyay inuu huriyay rabshadihii ka dhashay doorashadii sanadkii 2007 oo ay ku dhinteen 1200 oo qof. Ruto eedeymahaasi uu iska fogeeyay, maxkamadda ayaana mar kale wax dambi ah ku weyday. William Ruto wuxuu sanadkii 2016 ugu baaqay beesha caalamka in ay taageerto go'aanka ay Kenya ku doonaysay inay albaabada isugu dhufato xiriyaha qaxootiga ee Dadaab, halkaas oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaaliya. Ruto wuxuu sidoo kale hadda ka hor sheegay in ciidamada Kenya qaybta ka ah howlgalka nabadgelyada Soomaaliya aysan ka soo bixi doonin halkaasi tan iyo inta ay Soomaaliya nabad ka noqonayso. Wafula Chebukati oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Kenya ee IEBC ayaa goordhow ku dhawaaqay natiijadii la sugayay toddobaad oo ah in William Ruto ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee la qabtay 9 Agoosto, isagoo ku guuleystay codad gaaraya 7,176,141 oo u dhiganta 50.49% guud ahaan codadkii la tiriyay ee ay dhiibteen shacabka Kenyaanka. musharaxii ugu cadcaddaa ee dawladdu taageeraysay ee Raila Odinga ayaa isaguna helay 48.8, isagoo diiday inuu yimaado goobta natiijada, iyadoo goor sii horeysayba ay wakiiladiisa ku sugnaayeen goobta cod ururinta ee Bomas diideen inay saxiixaan foomka codadkii la dhiibtay ee ay heleen. guusha Ruto ayaa dad badan ay u arkaan inay muhiim u tahay Kenyaanka, maadaama lagu sheegay inuu yahay siyaasi firfircoon balwad aan lahayn, kaambeynkiisii ama ololihiisii siyaasadeedna u adeegsaday inuu samayn doono shaqo abuur uu harjadka iyo garab raratanimada kaga saarayo danyarta Kenyaanka, qodobkaasi oo loo arko inuu horseeday guushiisa. goor sii horeysay xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa shir jaraa'id qabtay waxayna qaadaceen natiijada doorashada oo uu Chebukati ku dhawaaqay. tanina waxay daldaloolo u yeeli kartaa guusha William Ruto. dadka ka hadlay shirka jaraa'id waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka oo ku eedeysay gudoomiyuhu inuu u afduubtay natiijadii, balse durba waxaa isa soo taraya hambalyada caalamka ee natiijada doorashada oo loo arkayay mid daahday shaacinteedu. gudoomiye Chebukati ayaa shahaadada guusha gudoonsiiyay William Ruto kadib markii uu ku dhawaaqay natiijada doorashada, balse sida uu sharcigu qabo lama dhaarin karo madaxweynaha muddo toddobaad, taasi oo looga gol leeyahay in ay maxkamad aadi karaan dhinacyada laga guuleystay waa haddii ay dood qabaan. deegaanada uu ka soo jeedo William Ruto sida Oldoret, Karitini, Iten iyo Sugoi ee bartamaha Kenya dhammaan waxaa ka socda dibadbaxyo loogu dabaaldegayo guushiisa. sidoo kale hambalyada guushiisa ee ay madaxda gobolka soo direen ayaa isa soo taraysa. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa boogooda Twitterka ku daabacay wax yar kadib ku dhawaaqidda guusha hambalyada ay u dirayaan madaxweyne William Ruto. si kastaba Kenya ayaa ka baxday toddobaad uu waddankaas hoggaan la'aan ahaa guusha Ruto, waxaana loo arkaa mid macnayaal kala duwan u samayn karta waddankan saboolka.